sidoo imiko kaliya dhaxkama ahayn ilaa waligeed ma dhaxkama ahayn doodaha ka socda in duweyd imika adigu 20 sano ah ta Soomaaliland laakiin waxa jirta mid marka la doonayo in la wareysto madaxda qaranka Soomaaliland markiiba inta mikrofoonka idaacadahu u dhiibaan oran maayeen hebel baan waan ku wareysanaa doodaas ka soo qayb galaysa muddo la siiyaa waana loo cayima dadka ay dooda la galayaan maalintii dhawata tan imika leedin BBC waxay ka keentay apology bay ka bixisay ها dhexdhexaad ma ahayn laakiin labada nin ee mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed meesha joogay marka hore maxay u ogolaadeen ba inay dadka noocaas ula gelayaan badood taasa muhiim ah qiimaha apology-ga BBC-du dhibaato ma leh laakiin marka hore mas'uuliyiinta qaranku inay ka digtoonaadaan taasoo kale weyn BBC-da mid baa faraya horta qirashada marka uu qof dambi qirto xukunkeedii buu qaatay in laga xayuubiyo sharafta dawladda laga eriyo nimankii marka dooda qabanayay waa number 1 inay sii joogaan maaha mid kalena waan sheegay idaacada BBC-da deeniyo meel arka kacay turfirfiriisay baa leeyahay ragii meeshan abuuray ma joogaan inama yar London laga soo qabtay meesha iska jooga iyagana waxaan la hawo bil training sida dadka loo wareysto iyo sida idaacada dhexaad loo noqdo baa u badiyay